maanta laba arrinba waa raba inaan idiin sheego dadyo waxaan rabaa inay caawisaan marka hore waxaan arkaa dumar maalin walba ragga Soomaaliyeed caaya oo yiraahda waa faasuqiin wax xasidiin wax yaala suuqin iyo wax noocaas aniga qisay yar oo igu dhacdan rabaa inaan idiin sheego xilli aan dhaweyn ugu yaraan 10 sano ka soo wareegatay ama ku dhawaad nin Soomaaliyaan caawiyay ima yaqaano magaciiga ma yaqaano taleefankayga xitaa ima uusan warsan ilaahay baa marxaati iiga ah maanta kelmad beena kuma daray intaan sheegay waxyaabo waxaa jira naftaada saameyn ku yeesha ee aadan ilaawin soo sidaas daraadid marka muuqaalka inuu dheeraada dhici karto qisadaydan iska dhageysta igana caawiya in muuqaalkan dad fara badan uu gaaro qofkaasna maybe inuu muuqaalkaygan arko hadduu ba nool yahay hadduu dhinta Allah u naxariisto hadduu nool yahay ninkaasi waxaan leeyahay waa mahadsanta waxa dhacan idin sheegaya marka aniga waxaan deganahay dadkiinan aan aqoonin London hooyo 3 caruur kaligeed kurisana beriga marka caruurteedu way yaryaraayeen West London aan deganaa waa la iga soo raray North ka la keenay councilka i soo raray haba la i soo raray shaqadeedii waxay noqotay inaan Westiga u aado subax walba intaan Northka ka safro bas aan raaco aan tago Westiga maxaa dhacay marka shaqada markii break duhurkii ayaan ku aadistaa Baker Street islaan degan oo cadaana oo waliba lacag haysataan personal care u ahaa waa iskala joogi jiro u sheekeyn jira dawooyinkii waxaana wasiin jiray marka break time-ka duhurkan salaada duhuran ku aadistaa waa soo baxa masaajidka meesha ku yaala ee weyn ee boqor faad u dhisan ku tukada casirkana markaan shaqada soo dhameey meeshaan ku tukada kadib aan bas soo raaca an hour half igu soo qaadataa waxaan markasta masaajidka isaga hornimaadaa mararka qaar actually wiil Soomaaliyeed wiilshar wiilka ku socday Soomaalida waa taqaanaan haday is arkaan way salaama ninka assalaamu calaykum iraahda waa ka gudba ama asaga iraahda ma wax gooniyo isdhaafsanay ma jirin so maalin maalmaha kamida marka aan baska isla raacnay maalin kasta intaan kugu arkaayo baskana waa raacda meel foga ka timaada ha Northkan ka imaadayaan ku iri markaas intee Tottenham so anoo Central London joogo Tottenham inaan bas ku tago waliba xilliga peak time-ka waa dareemi kartaa waa very harsh an hour and half igu qaadataa mararka qaar ama 2 hours haddii uu traffic jiro markaasuu wuxuu igu yiri tareenka kaaga fudud markaasaan ku yiri waa very expensive xaqiiqatan markaasi ma awoodin inaan shaqeeyo tareenna raaco ilmahaygana aan caawiyo iyo hooyaday xaqiiqda dadka faana iga taala nolosha London wax sahlan ma ahayn so wuu yaabay waa kala tagnay magacayga ima weydiin taleefankayga ima weydiinin waxaan weydiiyay marka sababta uu aragtay waxa ku dhacay wiiljarka uu saaray wuxuu igu yiri gaari iyadoo la dhacay Muqdisho xabadihii la soo furay igu dhacay dhabarka iiga dhaceen way inaafayeen waa ka tagay ayaan isma arag marka xilliyada isbeddelaya darteed summer time-na way ahayd maalinkii dambe anigoo casirkii jamaacadii hortay tukaday ordayo masaajidka galayo igu hor yimid haddana khaldanay 14kii 15kii meelahaas ahayd sanadkii ma xasuusto markaasaan si xanaaq leh wuxuu ii yiri intee ka baxday bariyahan dhan waa ku raadinaa markaasaan ku yiri waa yaabay qof aadan aqoon gaar ah isla lahayn inuu kugu xanaaqo meeshaan jirto ku weydiiyo mucjisa ila noqotay moogta markaasaan ku yiri dib miyaa jira maya soo baxo igu yiri masaajidka qofkii tagay yaqaan albaabka waxaa ku yaal dukaankii galay bac weyn oo alaab ka buuxdo ii soo bixi wuxuu yiri Cimraan aaday hadda dhageystaya baydkii Ilaahay aan aaday markaan cimradayda soo gutay hadiyadana ku soo gada waan ku soo ducay in Ilaahay ma aragti ku caawiyo mucjisa ila noqotay in qof baydkii Ilaahay kugu arko intuu baxo xaramkii taga haddana ku soo xasuusto baydkii Ilaahay dhexdiisa haddana hadiyad kugu siiyo mucjisa aqoon igala ma dhaxaysa qofkaasi Ilaahay baa iga saray wax aqoon u gaar u maleeyin ninkaas magaciisa xitaa ma aqaan haddana qaan waraadin lahaa maanta alaabtii oo ii dhiibay waxa cajiib kale oo alaabta ku jiray cabaayad size-kayga amoodo in aniga la ii tolay la igu jimeeyay cabaayadaha markay helo full yihiin waxaan qaataa 60 marka ay dhuuban yihiinna 62 so 62 cabaayad dhuuban oo material fiican haddii xitaa la dhaqa ana jajabin oo ii keena ninkan timir cajo iyo isbiya samsama iyo kitaabo yar oo ducooyin waxba ka buuxay ma xasuusta wixii kale mahadsanidaan ku iri waa tukaday gurigaygaan aaday yab anigi dadkii aan sii arkay oo u sheegay war ha isku isticmaalin waxba kugu aqrina war dhisimirta waa cunay ani dharkaygana waa iska xirtay ko sabab wax iiga halay ma jiri kartaba qof Ilaahay dartiis ii caawinayo
وريا إدي كداليني وحا عجيب كله يقول دعي وحي هيد تمرتا عبايدا وابل إيغا درناي مالين كلان بس كلا صور عويلكي والله ما جيسا ما قانو I hope إنو مقالكيغا ننكاسي دقيستو waxaa dhacday baskii markaan soo kornay 5 meelahaas waa something casirka leeyda la tukadaa xilliyada samarka wuxuu igu yiri walaalay macaanay khayr Allah ku sii waa dhiban tahay gaariga albaabkayga yaalo on disable ahaan u qaatay ma huba baawrka inuu Mercedes igu dhaha ama BMW labada marka midkooda waa aan ku siiyo adiga isticmaal anigu ma baahni aniga waa isku nax إحنا قف هذا أقول معناها شلي هدية أنت كسي ما أنتنا حتى مقعي إنه ويديني كأملين معي والله ده عادي قتها مقعي حتى إنه يقان أملين معي كهريك هالشقة كويمو هو الصومالية ذاته هو يفي عن ودذالي ساتها مركب بليس يقول أقوله ما ينكر هدية الدرة وكاقاتي لكن متكلي ولي بقى وهنتي مقولتها قاري ومبرئ أسيق ذكره لقى ما يابان قف كلا سيسو أمي إسكاقات أذي كوتها لكن ما بس كان كده جدا هي قرر علي نصيبوناك شقدي اللي يبدلي ما بقوبها بينا وستيجا مركلا آذو نوت كلا إيسو وريجي شقدي دي وإيسو فضلات المهم إلهي دعاء معركة أن دعاء يستوي أقبلي وحن ذي كل شيء جاي أمريكا ننكاسي وحن ربا هرتا أولا إن برشة لن وشيء وناقيس أنا جانا وحن ربا إن أمها هذا إليو هدي نكاس ومقال كي أركان وحن جعلان لها إنه يجو أقول هذا إن أنا هدية سيا مركية walaalkayga Soomaaliyeed ee caawiyay xilli aan u baahanahay maaha inaan maaragtay hanti financial u igu caawiyay psychological u caawiyay qofka adigoo u baahan naxariis yar xitaa ka hesho ku yiraahdo ku ducay Ilaahay dhibka kula garab garo wax la heli kara maaha wiilasheena marka kuwa noocaas ku jira oo iyagoo waxba ka rabin ku caawinaya psychologically ama financially kuwinaan dumaraho caayay ragana waxaan leeyahay dhammaantood ragga ma xuma kuwa xun oo faasuqiinaan leenahay kuwa fiican oo waxba iyagoo naga rabin Soomaalinimada nagu caawiya inta qabiilkiisa iska daay magaciisa xitaa ma aqaan mar kale idinku celinaya waxaan rabaa muuqaalkaygan marka inaan share gareysaan si qofkaasi u gaaro muuqaalkayga maxaa yeelay intuu ii sameeyay wuu yaqaan asaga is yaqaan masaajidkiina waa tilmaamay I hope inuu muuqaalkaygan aada u mahadsantahay walaalkay jannada Allah ugu bishaaray adduun iyo aakhiraba inaad Ilaahay kugu naxariisto